Dhisme laboshan eber sano jir ah oo laga helay Gabii, magaalo Roomaan ah oo qadiimi ah maxaa la helay arkeolojiyayaal uu hogaaminayo Prof. Marcello Mogetta University of Missouri ayaa ka helay Gabii oo hal mayl bari ka xigta Rome, barkad monumental ah oo dhagax ku wareegsan, qaybna lagu gooyey dhagaxa dabiiriga ah. Dhismuhu wuxuu taariikhdiisu ku beegan tahay qiyaastii laboshan eber biya, qaybihiisa qaarna laga yaabo inay ka sii duug yihiin. Waxaa loo arkaa mid ka mid ah tusaalooyinka ugu horreeya ee dhismo monumental Roomaan ah marka laga reebo macbuudyo iyo derbiyada difaaca. Macnaha taariikhiga ah barkada monumental waxay ku taalay xarunta magaalada, meel u dhow iskoyska ugu weyn, taasoo muujinaysa in ay qayb ka ahayd forumka Gabii, xarunta nolosha bulshada ee Roomaanka hore. Natiijooyinku waxay muujinayaan saamaynta naqshadaha Giriiga sida Parthenon iyo Agora oo ku saabsan dhismayaasha Roomaanka hore, meelaha laami ah, terracing muuqda iyo goobaha bulshada. Gabii waxay ahayd magaalo awood leh oo deris iyo tartan la ahayd Rome, balse la dayacay qiyaastii 5 eber biya, taasoo ka dhigtay in waddooyinkii iyo aasaaska dhismayaasha ay si fiican u kaydsan yihiin. Mustaqbalka qodista mashruuca Gabii oo uu Mogetta hadda hogaamiyo wuxuu sii wadi doonaa qodista barkadda iyo agagaarkeeda. Sawiro thermal imaging ah ayaa muujiyey anomaali u dhow barkadda, laga yaabo inuu yahay macbuud ama dhisme bulsho oo weyn. Haddii ay tahay macbuud, waxay sharxi kartaa alaabada la helay sida weelal buuxa, laambado, dhalooyin cadar iyo koobab calaamado leh, kuwaas oo laga yaabo inay ahaayeen allabaryo diimeed ama qayb ka mid ah xiritaanka caadada ee barkadda. Qiyaastii 5 eber ah ee macnaha guudhelitaanka Gabii wuxuu bixinayaa aragti cusub oo ku saabsan sida Roomaanku hore u qorsheeyeen magaalooyinka iyo sida meelaha bulshada iyo diinta ay u kala hormareen. Waxay sidoo kale ka caawinaysaa in dib loo dhiso sheekada dhismayaasha Roomaanka iyo saameyntooda ku saabsan naqshadaha casriga ah.